xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Puntland Mudane Maxamuud Xasan Aw Cismaan ayaa shaaciyay xilliga kama dambaysta ah ee xukunka dilka toogasho lagu fulin doono raggii lagu helay kiiskii Caaisha Ilyas Aadan. Aw Cismaan ayaa telefishinka qaranka maamul goboleedka Puntland u sheegay in raggaasi oo gaaraya 3 la toogan doono subaxnimada Salaasada ah ee 11ka bisha February 2020. sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in uu shalay wareejiyay galka fulinta xukunka oo ay ku lifaaqan qadii dhaxalkoobka iyo codsigii qasaaska dalabka qoyska marxuum Caaisha Ilyas Aadan. saddexda xukuumanaha ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cabdishakuur Maxamed Dige, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal midda raafaanka iyo tan sare ayaa waxay xukun dil toogasho ah ku rideen raggan kadib markii lagu helay kiiskaasi. Caaisha Ilyas Aadan oo 12 sano jir ahayd ayaa la iskugu daray kufsi iyo dil bishii February ee sanadkii hore ee 2019 waxaana dhacdadaasi si weyn u taabatay dhammaan dadka Soomaaliyeed.